السلام عليكم ورحمة الله كسو دوادا مقال عسب maanta muuqaalkan wuxuu ku saabsan yahay habka aad uga dhigan karto xogtaada Facebook mid ku gaar ah taas oo aad la wadaagi kartid asxaabtaada qaybina aad ka qaran karid haddaad rabtidna aad public ka dhigi kartid adiga aad maasaad u maamuli lahayd xogtaada Facebook ayaa maanta muuqaalkan ka diiradda ku saarina haddaba meesha iga daawanayso waa Saa Technology waxaa laga codsanayaa channelkan subscribe aad ka hilmaamin sidoo kalena muuqaalka sii share garisin asxaabtaadana aad la sii wadaagtid like iyo comment aad hoos noogu reebtid marka hore waxaan tagaynaa si aynu xogtana Facebook aan u maamulno waxaan soo furnaa Facebook app-ka ayaan soo furnaa markaan soo furo waxaan ku dhufanaa meesha saddexda xidigood ku qoran tahay waxaan hoos u sii soconaa meesha waxaan ka sii dooranaa settings and privacy ayaan ka sii dooranaa waxaan ka sii dooranaa settings ayaan ka sii dooranaa waxaan ka sii dooranaa privacy and settings ayaan ka sii dooranaa halkan kore ay ku qoran tahay check a few important settings ayaan ku dhufanaa haddaba meesha socon waa meesha tan inagu waxaan hadda ka dooranaa dhowrka option midkan u sareeyo ay ku qoran tahay who can see what you share ayaan ku dhufanaa halkan waxaan ku siiyay saddexda option oo kala ah profile information xogta profile-kaaga iyo post and stories iyo waxyaalaha soo booskarisid iyo waxa asaas ka asaaratid iyo blocking inagu hadda waxaan ka hadlaynaa labada tan u sareeya ayaynu maanta ka hadlaynaa continue ayaynu oranaynaa halkan hadda ciwaanka sare wuxuu siiyay oo inoo soo hormariyay privacy information ayada waxa weeye waxyaalaha profile-kaaga Facebook-kaaga information ku jira halkan waxaan kugu qoran hoose phone numberka aad kugu sameeyay Facebook-kaaga numberka uu kugu sameeyay Facebook-kaaga ayaa ogaan kara ma adiga kaliya ogaan kara ma asxaabtaada la wadaagi kartaa waxa jira dad aragtay dadka qaybahood in numberkooda hoos laga helo Facebook only me ba ka dhigan karaa friends-kaaga ayaa la wadaagi karaa sidoo kale public ayaa ka dhigan karaa laakiin waxa ku roon inaad ka dhigatid only me halkan waxa ku qoran date birth ayaa ku qoran xilliga aad dhalatay ayada sidoo kale waxaad ka dhigan karaa only me waxaad ka dhigan karaa public sidoo kale waad ka dhigan karaa ayada ah bishii iyo sanadkiiba magaalada aad ku nooshahay oo aad degan tahay meesha ay ka shaqaysid waxay barashada aad baratid dhamaantood iyagana public waa ka dhigan karaa friends-kaaga waa la wadaagi karaa sidoo kalena mid ku gaar ah waad ka dhigi kartaa adiga taas ay ku jiraan mid ka doonaysid sidoo kale waxa kugu qoran asxaabtaada kugu jira Facebook-ga ma qarsanaysaa iyo kuwa aad ku soo follow gareeyay ma qarsanaysaa mise waxa ka dhigaysaa mid public ah intaba way ku furanta inaad ka dhigatid kaliya in asxaabta qayb ku gaar ah aad tusid oo inta ku dhufatid halkan ka dooratid inta aad tusaysa asxaabtaada mid ku gaar ah aad ka dooratid iyo in asxaabtaada aad qayb ka qarisin ayadaba inta way ku suurtagelaysaa inaad public ka dhigatid ayada intaas halkaas aynu uga gudbaynaa qaybtii labaad aynu soo gudbaynaa qaybta labaad waxa weeye waa posts and stories ayadu waxa weeye waxyaalaha aad dhigtid ayagoo laba qaybood oo waa kuwa kan hadda waxaan ku hormarinaa future posts ayaan ku hormarinaa waxaad ka dhigan karaa dhowr option ayaa lagu siiyay inaad only me ka dhigatid inaad asxaabtaada qayb tustid oo specific friends ah iyo inaad asxaabtaada qayb ka reebtid oo ah friends except asxaabta marka qayb laga reebo inaad tustid inta kale iyo inaad friends-kaaga kugu jira Facebook-ga kaligood u ogolaatid iyo inaad public ka dhigtid oo Facebook oo dhan u ogolaatid haddii aad only me ka dooratid waxyaalaha aad dhigtid dadka kaliya aad u didid aad kaligaaba arkaya only me ka dhigtid special friends hadaa ka dhigtidna hadaa ku dhufatidna halkan asxaabta ayaad ka dooranaysaa aad tusaysid kaligood ayaa tusaysaa cid kale tusimaysid cid kale arkamayso sidoo kale halkan waxaad ka dooran karaa hadaa tiraadid friends accept hadaa tiraadin halkan cidii aad tigta saadid ma arkayso waxyaalaha aad soo dhigtid sidoo kale halkan friends hadaa tiraadid friends-ka u koreeyada ku dhufatid waxa arki karaa asxaabta Facebook ugu jira publicna waa la mid asna waxaan uga soo gudbanaa qaybtii labaad oo stories ahayd ayada waxaad ka dhigi karaa friends ayaa ka dhigi karaa custom ayaa ka dhigi karaa oo asxaabtaada ku gaarka ah iyo inaad ka dhigtid
friendskaaga sidoo kale waa laba qaybood waa loo qaybshay qayb ayaad oran kadhaa iga ka qari asxaabteyda oo yes arag ayaad oran kadhaa sidoo kale public ayaa ka dhigan kadhaa anuu hadda labadaba public ayaan ka dhigtay waayo maxaa yeelay saan wax usoo post gareeyo dhammaantood asxaabteyda iska arkeen maanta muuqaalkana intaas ku saabsan yahay fadlan haddaad ka hesho muuqaalka sii share garee asxaabteeda la wadaag muuqaalka xigana wuxuu ku saabsan yahay hoos noogu soo reeb waxaa jeceshahay inaan ka hadalo weeye asalaamu calaykum waraxmatullahi